aad baan salaamaya saaxiibada meel kasta joogtaan halkan waa rashka Trulof saaxiibada ku soo dhawaada muuqaal kooban oo inuu ka eegi doono dabcan muddooyinkii ugu dambeeyay baraha bulshada waxaa qabsaday hees aad iyo aad markaas u macaan badan oo ku luuqeynaya fanaanka lagu magacaabo Mursal Muuse oo dabcan isqaabaan fanaanada codka dabacsan Hodan Abdiraxmaan run ahaantii heesta dabcan dhaxyar ayaa lagu magacaaba waxaana jilitaanka markaas qayb ka ahayd fanaanada lagu magacaabo Xamdi Bilan oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnayd gudaha magaalada Hargeysa gudaha maamulka Soomaaliland saaxiibada waxaanu eegi doonaa dabcan fanaanada codka dabacsan Hodan Abdiraxmaan way ka hadashay sidoo kale waxay kaga hadashay si markaas carale inkastoo dabcan saaxiibada aan idin soo gudbin doonin cadeymo ku saabsan laakiin baraha bulshada ayaa lagu soo waramayaa in boqolkiiba boqol markaas ay ka hadashay laakiin si qarsoodiga codadka loo hayo saaxiibada ugu horeyntii soo dhawaada waxaan idin ka codsanaynaa in muuqaalkan noo subscribe gareysaan sidoo kale inaan laagtaan uga caawisan saaxiibada waxa la yahay soo dhawaada run ahaantii dhanka warbaahinada ama markii loo eego baraha bulshada waxyaabihii ugu dambeeyay aan idin soo gudbin doonaa وهجاك صاحبيال ملك ساجوكتان سود وهذا رناهانتي مركا طبعا عاد إسلاد هاي فنكو وح وناكسن رناهانتي ذكر وحليهم فنكو مو وناكسن صوبت هاي حاجة جاهجة أما قف كلية مركز كل صون تاعية هبلك لا تلاهيسية رناهانتي إنكستو طبعا فنكو يا هالشيء لجوه ذي هاي لبض الروح خدنا ورا يا صوب حيا إن هذا عبد الرحمن آديات وحنت هاي ما دام مقال رومانتي جاهي وضدوبين حمدي بلان يقولي بقى fanaanka codka dabacsan Mursal Muuse beejajka ee ka faalooda arimaha fanaaniinta ama website-yada heerka caalamiga weeyaan ayaa ku soo warmaya in Hodan Abdiraxmaan ay ka xumaatay maadaama dabcan loogu talagalay in markaasi ay isla qaadaan heestan fanaanka codka dabacsan ee Mursal ninka la yiraahdo mar dhow marka Facebook waxay ku soo qortay hadal run ahaantii waan ku kalsoonahay xajayga markastana aniga ku qanacsana wuxuu sameeyo laakiin dadka qaar waxay u fiirsadeen in dabcan ay ka xun tahay laakiin dadka baraha bulshada isticmaala badi waa war xumo tashiilayaal weeyaan kullay markii dabcan walaasha oo ay timaado meel markaasi aad uga fog gudaha meesha aad degan tahay wana soo dhaweysaa soo markaa Xamdi Bilan waxa lagu soo dhaweeyay heestan ayada qudheeda way ku qanacsan tahay inkastoo ayada qudheeda xataa dabcan isleedahay alleelahay waxa ku wanaagsan lamaanayaal isqaba laakiin kaliya metel weeyaan in wax la matalo ceeb ma aha in la matalo aflaanta su'aalaan oo kale hindiga markii loo eego dad aan isqabin ayaa wax kasta sameynaya xataa dabcan way isbaashiinayaan waxay rabaan ay sameynayaan aadiyad laakiin markii loo eego maadaama diinteena muslimeed boqolkiiba boqol Soomaalida muslimiin waxa mamnuuc ah in labada lamaane aan isqabin wax ka sinaysa sameyn kareen laakiin wax kasta waxa haboon in markaasi dabcan muhiim ay tahay qanacsanaan iyo waliba waxyaabo lagu hashiyo sidoo kale Xamdi Bilan way ka hadashay arimahan waxay tiri dadka warxumada shiilka ah ee ku faafinaya hadalada been abuurka ah waxaan leeyahay walaasheeda Hodan iyo aniga waxa naga dhaxay walaaltinimo waxaanu rajeyn doonaa in walaaltinimadeena ay si wanaagsanaan doonto laakiin dadkaasi waxa aan leeyahay waraxaas iska daaya runtii muddooyinkii ugu dambeeyay Xamdi Bilan waxay ku sugnayd gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland waxaana sidoo kale lagu soo waramayaa in iminkanba ka soo tagi doonto gudaha magaalada Hargeysa sidoo kale Hargeysa waxa u tagtay in sanadka cusub 2022 markaasi saaxiibadeeda la sii joogto dabcan heesa kala duwan halka ay ku soo qaado runtii Xamdi Bilan fankeeda markii loo eego Xamdi Bilan waa inaan degan waa inaan macquula waa inaan markaasi dabcan fanka xataa markii ku soo biilaysay waxay tiri fanka aniga ma aan raasan laakiin asaga ayaa soo raadsaday fanku waa sax weeyaan mar waa ku soo raadsanaya marna asaga adiga ayaa raadinaysa soo marka waxay tiri aniga ma ku qanacsanin laakiin saaxiibadayda iyo dabcan asxaabtayda ku badan mooyaane fanka aniga shaqo iyo shaqo ma kullihi ay tiri runtii Xamdi Bilan waa fanaaniinta ugu akhlaaq wanaagsan weeyaan fanaaniinta Soomaaliya gaar ahaan kuwa Muqdisho waxa ugu wanaagsan Sacdi Siman iyo waliba fanaanadan codka dabacsan Xamdi Bilan runtii ma arkaysa ay koob madaxooda qaabinaya aadiyad ma arkaysa ay koob madaxooda qaabin la dhahaya labadaasi fanaan inkastoo hadda muuqaalkan uu yahay muuqaal yar oo iska macquula laakiin ayada xataa waxa la sheegay inaysan ku qanacsan laakiin ay isleedahay alleelahay bal waa caadi weeyaan oo geeda micnaha maaragtay hal marsiyo marka saaxiibada muuqaalkan tan ayaa ku keenay ku soo gabagabeynay waxaan idin ka codsanayaa in YouTube-keena Rashka Trulof noo subscribe gareysaan Hodan Abdiraxmaan kolley waa wax baraha bulshada lagu faafinayo weeyaan wax kale ma jiraan arintu way degan tahay kolley labada fanaan markii dabcan fanka wax kasta wuxuu leeyahay shuruudaha waxaa kamid ah fanka in dabcan de la maseerin si ugu maseeraysa gabdha sidaad oo kale taa walaashada oo dabcan de qofkan adaaba leh samaha dadka war xumata shiilkan waxaan leeyahay
warheedaha waxaa la joojiyay saaxiibada waxaa leeyahay muuqaalkiisa xiga intan ayaa ku hakan kusoo gabagabeynaya waxaan idinka codsanayaa youtube-keena qashka True Love noo subscribe gareysaan waana mahadsan